Seminaarkan oo muddo 4 maalin ka soconaya magaalada Beledweyne ayaa ciidamada booliska lagu tababarayay ilaalinta xuquuqul aadanaha iyo doorka ay ka qaadan karaan ciidanka booliska kaasoo ay bixinayeen saraakiil ka socotay hoggaanka tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. munaasabada tababarkan lagu soo xirayo cutubyo ka tirsan ciidanka booliska ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socotay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka aana kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha saldhigga Beledweyne laba xidigle Muuse Salaad Weheliye oo faahfaahin ka bixiyay intii uu socday tababarkan iyo cidda bixisay tababarkan. mudane gudoomiye muddo 3 maalmood ka hor ah 23 bishan ayaan halkan ka daahfurnay seminaarkan ardada hortaada fadhisa ay uga faa'iideysanaysay sidii ay ugu adeegi lahayd bulshada aqoontoodana sare loogu qaadi lahaa. runtii waxaa xusid mudan inaan aniga laftaydu iyo saraakiil kale oo dhammaan saldhigyada Hirshabeelle iyo taliyaasha sarsare qaybaha iyo qaybaha guud intuba ay ka qayb galeen 2 kulan oo kale oo Muqdisho ka dhaceysay nalaguna soo baray waxa halkan lagu baranayo. taasna waxay keenaysaa mar haddii saraakiishii wax xukumaysay si xisaabtanka fulinaysay wax la baray haddana in ardadii aan wax yani saraakiishii la baray aysan isaga fulin ayagiina la baro in isla xisaabtan. Maxamed Cismaan Maxamuud, raadiyaha telefishinka Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada Beledweyne.